runtii waxa waaye waxaa aad ii dhex qaaday kooxdii fanaaniinta abwaan tarash kooxdii koonfur galbeed heestii ay qaadayeen runtii waa hees aad iyo aad iyo aad waxa waaye ay aad ii soo jeedatay ereyadii heestaas oo ka hadlaaya isku duubnida shacabka koonfur galbeed isla doowneen dadow isla doowneen wali haytay hees dhaaftay miraag keertay muusikadii iyo weliba intaba iska fogsatay mayaantiye lala darjigodaw wadani waltareen dadshay i dadshay unduuban badanshay darjigayaas waana ka abuuraas wadaniyad daljeelaan i ini isu aamina araadis langdheegay heestun dhagaashay ka dhiidi bakolkoona howlanku qabna ini isu dhinjaajiiday may weeli miraye ku suubsantiya wali haayana haano ka fidhi miisaan afmaaladi alifi yo ka ibraayeen sida umato kolkiya iska duubanta afaaf lahankumooda aan lahayna aylaninka daba korna kasanje sihil iyo hanka gudugal korna dhiniga nabadiye oofshe taabje i daagje walbarashoodiye sanaadiye i ilmishe wal hanka la baha korto dooshe anka dareero koro dirisje i higaas jareeshe beec mushtariye in iska dareero koraan dood ii dacwo lang tartiibto in iska mootii koraan yeedoo eeraab lang ete daraw laninka huwaaye korna andhikaalshee gabalkaas may ka qaadna sidii dareenka dadka gabalkaas rooga onkeedii tooloto ee yeeda haatow lalama saalo koro afdad hakubati may ka kasoodayna welina goonoon haatay fanaaniinta arlahadii koonfur galbeed oo horboodaw afyaalka wiinaya ilaahya wiina waaxid magaaji ilhaayaw maxamuud xaaji maxamed tarash oo 50 sano kureed goosan cusubon oo fanaaniin yaryar barbaar kuri i gabar in iska jaraan hasaari faqayka maraayka murtidi ifanka reer koonfur galbeed laka owlaaliyaw beledkum baydhawo kolkii garab iyo gaashaan yoo ku heleen mas'uuliyiinta koonfur galbeed oo unka horeeyaan madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye hana soo naqdeen ulhayki unka horeeyay deegaanada koonfur galbeed ee reed indayaan fanki iyo fanaanka afyaalka iyo kirsuubiyaalka laashime iyo gobaytooda afmaalka kanool dhulka lamaadijin ee webiyaalka jubba iyo shabeelle isbii goolgey hadalshay mahayna afwadlaku eri aabaqooyowka fanka arlaadii iyo walbarashooda aman dembi hilmaame rungmuku ekiilahay waa ka bari iri daleel anka dhiidi goboob jaro kuleel daari korhura waa ka anka bari kolkii usa aragi diidaneegii koronka howka fanka arlaada koonfur galbeed madii fanaaniinta arlaadii koonfur galbeed i aawsho usa horbooda maxamuud xaaji maxamed tarash manwiin in ijaartay dowlad goboleedka koonfur galbeed ulhayjo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen intii min wahadyo unlayin dowlada koonfur galbeed koldhow indhisaas hadalkii madaxweynaga bilong agosto dhatiye usi kujeedii beledkum baydhaw kol usukug iibgalaayay bandhigii fanka i walhabiyowka deegaanada koonfur galbeed waana fuli isla dheegnoy kasankii korjari iyo kii gudaagaana ka jari wa siyo on eraan horlay on quursadeena unina libintaas hayno hambalyo war eed iyo eedin faylaya la suubii war sharafee la suubii dadka soomaalida walina ku faday lankasta wala ii isu sheegay kooba adimid sheegna lanka sheego wale dhaqankan kafayna soomaaliya iskule soomaalina dhaqan lata gaar ahaan reer koonfur galbeed dhaqankan kafayna yihiin Baba
heestun wali habatay lamaada kuntumi siyeedkii walina habeeyey goosan faneedka iskaaladeen ee walaalo bay hawbang iyo garbooda music bang hana soo iska darsidii fikir agle yeedoo taasna ka dhaliidii kulyo onriikadu waayeena umuto koonfur urus midnimo laantiyo wali dhawanto wali reed ku sheeno korta iyo hoobo isla dowahaan sidii yeewal tareen ankanagadu korta dadka iyo dalka kolka anagsan lahaa heeska hees dhaafi misku ernee wal eri lan waahey ma ernee umuto dheegday hortiyoo laku qaadi sidiyo unka dhega raariyeen yamaatiyaasa ini heeska eyi koo lan damiir ii wadaniyad dad iddal jeelaan leh madiibo ambedelaasa heeskun waana markiiban eraw heestun alow hees dharangu waana istaahile ini lakuweela astaanta hoobo ma ee adaleeta waa ku hadalkii guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye ku eri heeskun isidiya an mudunta amboonay istaahil ankaata ini dowlad goboleedka koonfur galbeed annagata heeskun hees kolkasta lahanqaadadaw astaan qaran umuto inis dumaasa midnimadiyo i wada jarshoona waltareen maada ankeeta ugu dambayntii waxaan rabaa inaan laba arrimood aan kaga faa'iidaysto halkan runtii waxaa aad ii dhex qaaday kooxdii fanaaniinta abwaantarash kooxdii koonfur galbeed heestii ay qaadayeen runtii waa hees aad iyo aad iyo aad ay aad ii soo jiidatay ereyadii heestaas oo ka hadlaaya isku duubnida shacabka koonfur galbeed insha allah waxaan rabaa shacabka koonfur galbeed inaan wax ka qaadano dardaarankii abwaanka iyo kooxdiisuba halkan ay ka soo jeediyeen inaan tusaale u noqono midnimada iyo wadajirka shacabka soomaalida midnimada inaan ka bilaabno shacabka soomaalida koonfur galbeed ku dhaqan inaan ka bilowno inaan gaarsiino ilaa iyo kunti ugu dambaysa meel walba qof walba oo soomaaliya u jooga astaanteena inay noqoto reer koonfur galbeed maxaa lagu yaqaan marka la yidhahdo koonfur galbeed soomaalida ka soo jeedaa waxaa lagu yaqaanaa dad midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ka shaqeyna insha allah taas inaan dardaarikaas inaan qaadan runtii mudan madaxweyne codsi waxaan soo jeedin lahaa in wasaaradda warfaafinta khusuusan raadiyo koonfur galbeed laga codsado ama loo soo jeeday in heestaas ay noqoto hees 24 saac markaysan barnaamijyo aysan soconin raadiyo koonfur galbeed saaran si ay shacabku ay u dhegaystaan mar walba ee baraarujin inay ugu noqoto madaxweyne taas iga codsi waayo inaad amarkaa bixiso ebedje madhiina mas-uul ini hakaha dhiirigelinta heersha inta deerawna ini dhagaashoo ka tafijiyey afmaalee deegaanka heestoo suubiyan taasoo kolkii guddoomiye cabdiqaadir shariif sheekhuna maye hadali kuweeli weertiis too taariikhda keedka afyaalee ku gali meel dahabe dooshayna kaalan maadda kuweeli afmaalka fanka koonfur galbeed meel goonahaanina anka qoreen ebedsooniyo townaada doonaan maana an hilmaamo doonna townaadayan gu'i guyaala intiibo afmaal jara keersuubiyahooga fanaan edmay hees qaadaw masrax bufuulo weerta cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo inhiiliyow ka fanka iyo fanaaniinta koonfur galbeed madaweynaaga koonfur ursa cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maadshoyaaloy ama halwaayoy tubaaliyo madalaaso taariikhda afyaale i reegaytana baaldahab yaka abtugaayan waxaan rabaa inaan inta uga mahadceliyo fanaaniintii labada nooc oo ahaa fanaaniintii koonfur galbeed iyo fanaaniintii janaalkay sida quruxda badan oo ay u hanuuniyaan dadka oo u wacyigeliyaan ay waxa fiican u tilmaamaan oo wixii ku habboon ay u sheegaan oo ay u qaadteen waajibkoodii shaqo oo laga rabay oo abaabulka bulshada iyo fulinta iyo wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha ahaa sida fiican ay u guteen iyo mas-uuliyaddaas iyo ammaantaasna waa ku mahadsan yihiin iyo toosintaas iyo tusaalaynta intaba aad ugu mahadsan yihiin labada kooxoodbo kooxda koonfur galbeed taras iyo kooxda banaalkana
maysinku ku tabay taariikhda fayliya is-abtugaasi ee dadma abtugaw sida tanhaadow lamaada mas-uul koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo cabdiqaadir shariif sheekhuna amaye fanka inkahiiliyeen adiina townaaw taasaha isla dahowneen dadow isla dahowneen heeskii dowlaado ulhayje andooreen iniya nagata astaanta midnimada dadka degaaw lamaada weba jubba i shabeelle degaleediyo eg koonfur galbeed iidanka mahadsantiin sida faylaysiinin dhegaysateen